kulanto wacan wanaagsan idil ahaantiinba meel walba dunida ka joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij aan ku falanqeyn doono qalinka hooyada lagu sameeyo isla markaasina lagu kala badbaadinayo ilmaha yani barnaamijkeena si guud ugu falanqeyn doona barnaamijkeena waxa igala qayb qaadanaya oo marti ku ah waa Dr. Ahmed Barakhad oo ku takhasusay qalinka hooyada sidoo kalena ka howlgala hospitaalada deegaanka ee Kaaramarda iyo Rafaalkaba sidoo kale barnaamijka waxa qayb ka dhanka culimada diinka oo ila joogo Junaidi Hamsi oo inta badan barnaamijyada nagala qayb qaata soo doorka culimada diinka iyo diinta islaamku ay ka qabto ayaanu ku eegi doonaa faa'iidada uu leeyahay hooyada qalinka lagu sameeyo iyo kala badbaadinta ilmaha sidoo kale Fardowsa Cabdi oo kamida dadkii inta badan bulshadeena iyada markaas soo martay qalino dhowr jeer ah balse hadda rabta in bulshada ay doorka iyo faa'iidada ay leedahay ilmaha lagu kala badbaadinayo iyaduna qayb ka oo nagala qayb qaadanaysa barnaamijkeena dhamaantiin waad ku maasantiin sida fiican qiimaha badan ee noo soo ajiibteen una soo fadhiisteen bulshadiina aad wacyi gelisaan balse marka hore waxaan ku bilaawi doonaa Dr. Ahmed baan ku bilaawi doonaa oo qalino badan soo sameeyay deegaankana ka howlgala doctor marka hore waxaan jeclaan doonaa wal dadkeena wad ogtahay caqabo inta badan marka la yiraahdo hooyada iyo ilmaha hal kala badbaadiyo way diidaan caqabado badan bay lagala kulmaa waalidka ama qofka sayga gabadha ahaado ama family gabadha ahaado marka la leeyahay in ay xaalado lagu kala badbaadinayo ay taagan tahay bal adoo warbixinta iyo waayaaragnimadaada nala wadaagay bulshada marka la nahay qalinka hooyada lagu kala badbaadinayo ilmaha maxaa looga jeedaa waa su'aal fiican waxa loola jeedo markii la leeyahay qalitaanka hooyada iyo ilmaha lagu kala badbaadinayo waxa weeyaan horta waa jeexitaan qalitaan ma dadkeenu qalitaanka general sida guud phobia ka qaban ama yaani way ka cabsadaan marka qalitaan ma ahay waa jeexitaan hooyada maqaarka koreeto yaa laga jeexaya waxa la sii dhex maraya murqaha iyo xaydha iyo faashiyooyinka ama xubabka ku gaaran ubucda marka kadibna makaanka qaybtiisa hoose yaa la jeexaya marka ilmaha laga saaray marka haday caloosha noqoto xiidmaha noqoto lama taabanayo marka waa wax jeexitaan yar oo hooyadu ay awoodo 6 saac gudahood inay ku socoto ay ku bilowdo cuntooyinka yarka khafiifka ay ku bilowdo qalitaanku waa noocaas weeyaan la sameeyo hooyada marka sida guudna waxa weeyaan waa kala badbaadin weeyaan hooyada iyo ilmaha qalitaankaas laba nooc noqon kara ama ku maxay ahaydii ilmaha sababta loo qalahay ay tahay ilmaha daraadeed oo ilmaha ayaa tusaalahan xaalad adag ku jira oo stress oo wadna garaaciisa hoos u dhacay ama kor u kacay ama xaalad adag ilmuhu ku jira oo hadii uu foosha sii socoto 2 saac 3 saacaday sii socoto ilmuhu u dhiman karo sababtoo hooyadu 9 bilood oo dhan bay ku soo rafaysay waxa laga yaabaa waqti badan inay sugisay ama wuxuu noqon karaa mid hooyada ay dan u ah oo ah hooyadu tusaalahan way dhiigaysaa ama miskaheeda cidhiidhi oo ilmaha ka weyn ama maxay ahayd mandheerta xag hoose ku daboolan oo placenta previa waxay dhahan ama maxay ahayd hooyada intii la isku day irbadi foosh in la siiyo irbadi foosh muddo badan ku socotay iyo xilliga loogu talagalay ayay dhaaftay marka hooyada iyo ilmaha labadooduba xal ayay u tahay qalitaanku u yahay marar badan malihin yaani markaas xal buu yahay marar badan buu xal u yahay marka waa sidaas weeyaan qalitaanka overviewgiisa ama si kooban hadii loo dhaho doctor maxaa loogu baahday in qalinka ama cesarean sectionka lagu sameeyo hooyadu qalitaankan lagu sameeyo ama jeexitaankan lagu sameeyo laba nooc buu noqdaa inta badan mid ilmaha faa'iido u ah oo ilmaha yaani lagu badbaadinayo oo hadii foos socoto ilmaha uu dhimanayo ama mid hooyada dhibaato badan u keensanayo oo ah tusaalahan isku furan oo kale hooyada inuu ku dhaco ama ay ilmihi totally u soo mari waayo oo ku dhex dhinto meeshii ama madheerto ay ka soo kayso marka qasab waxa noqonaysa markaas oo kale in ay maxay ahayd hooyada lagu jeexo waa qasab weeyaan ama meesha ugu dhow ee lagu jeexi karo tusaalahan hadii health center ama primary hospital ku fulanayso ama meel online adeega qalitaanka tahay in qasab durbadiiba la geeyo maxay ahayd meesha lagu jeexi karo marka sababtaas loogu baahanayo waa kala badbaado sababta loogu baahanayo qalitaanka sababta loogu baahanayo waxa weeyaan waa in hooyada iyo ilmaha la kala badbaadiyo Fardowsa waxaad sheegtay ama tahay hooyo 3 jeer qalin gashay marxaladaha markaad galeysay inta badan dadkeenu ama markii marxaladii ugu horeysay aad maasay lagu soo bandhigay qalin aad lagu sameeyo waxa laga yaabaa si ay inuu diiday ama aad diiday family diiday karaan ma jirta caqabadahaas ma la kulantaa mise waad ogolaatay runtii waxaan ahay hooyo 3 jeer qalitaan gashay
saddexda qalitaan oo ii kala duwanaayeen midkii koowaad maalinka la ii soo bandhigay horta waxaan qalitaanada u geliyay labadii hore awlaadda xaggooda ahayd ciyaalkayga ayaa biyaha goosanayay kabacdina ciyaalka naqaska ayaa iiga dhagayay kabacdina dhakhaatiirtu saasay iigu soo jeedinayeen qalitaanka koowaad ee la ii soo jeediyey 4 dhakhtar baan isku maray kow referaalka igu yiraahdo qalitaan baata ilmahaga biyaha ka yar naqaska ku dhagan waxaan iri dhakhtarkan waa beenaale bal horta dhakhtar kala tag haddana markii labaad waxaan tagay Dr. Mutasin Dr. Mutasin sidoo kale wuxuu yiri qalitaan degdeg ah tahay waan ka booday waxaan tagay haddana Dr. Madiina u tagay waxay tiri qalitaan degdeg ah tahay haddana waan ka booday waxaan tagay Karamardha waa hal maalin gudaheed weeyaan intaana waxaan ka cabsi qabay bay ahayd qalitaanka la igu sameynayaan ka cabsi qabay ka bacdi marka qalitaankii Karamardha waxay igu dheen ilmaha naqas ku dhagan yahay qalitaan degdeg ah tahay waa in lagu seexiyaa yaa kula socda gabadhu maashadii bay la socotay waxaan ku iri walaal iftiinkan soo arkayay banaankan u soo baxay gabadhii baa dhakhtarka waan ka soo cararay wallahi been ma sheegayo xaafadeedii baan ordayay imaaday 2 cisho ka bacdi bay fooshi qabatay markay fooshi qabatay ana waxaan tagay ilmahaygu malkiisi socdo ونقصك كل جيني وحالات قتل كشران تجي مركي أن تجي كبعدنا ده دخاتيرتي أي أنا وفاميل كيجي أي نوشجن سيد بلد مركي تنبيت ده أفرد أخترنا إيسو حقيقيا أيام كوكالي قلتانكي الحمد لله رب العالمين قلتانك هرتا وإلهي إن مصلحة إلهي نوصو صاري ويان مصلحة إلهي نوصو صاري أما إلمها كوكل أما عديق النفط هذا وقل أنا أقول لبدأ إيالي يقول الرئيسي وحان كوكلي أولاد إذا أبيها كيراني سيبي هيد كي كوباد أقباد أسا متقانا عن لكل مي كي دنبانا متقانا يعني أقوى ذا إنان عادي ودالو وشانسي أن هلي لبستانا إيا سيديد بلودا أيو هدر إلمي بيها إيقا قوستي مركا بلشوينتا كوداقن ديغانكا سوماليد وحان كوانينيا hooyo kasta oo Soomaaliyeed kow ilmaha aad 9 bilood caloosha ku soo walacday eed u soo rafaaday adiga sababtaada yoon u dhimaanin midda labaad hooyo innaga alxamdulillaah rabbil caalamiin waagi hore ma haysan jirin dhaqaatiirna kala badbaadisa ama ma taqaanay xarumo caafimaad wanaagsan ma haynin hooyooyinkeena waxay u dhiman jireen daryeel caafimaad la'aan bay u dhiman jireen dhiig bax bay u dhiman jireen ilmihi hooyada isku dhiman jireen laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waxaan haysanaa dhaqaatiiro waaweyn oo dhaqaatiir waaweyn oo maanta diyaar noo ah inay inagu iyo awlaadeennaba ina kala badbaadiyaan markii intaasoo aad dhakhtar ama xarumo caafimaad aad maraysay ujeedku waxay ahayd inaad micnihii aan lagu sameyn qalay ujeedkayga ugu weyn wuxuu ahaa inaan qalitaan laygu sameynino hal dhakhtar oo kamida uu idhaho kaab calashaan ilmahaagu waa dhali kartaa been buu sheegayay afartaa dhakhtar waxaan isugu mariyay sabab kale wallahi ma inahayn waayo waxaan rabay inuu hal dhakhtar oo kamida idhaho ilmahaaga biyihiisa waa caadi ama ilmahaagu wuu caafimaad qabayaa marka sababta awgeed baan u wareegaysanay ma kala kulantay qoyska ama familiga caqabad markii marxaladda ay taagneed ee intaasoo dhaqaatiirana ay kugu amreen in qalin aad ku badbaadi karto familiga caqabado ma kala kulmay runtii horta inta waxaan la wareegay familkayga bay la wareegayay oo ilaa bal hadana dhakhtarkan tag alxamdulillah aniga saygayga wax caqabada kala ma kulmin laakiin hooyadii baa aad u cabsatay oo aad u walbahaarto ila joogto waqtiga isaga ah oo igu tiri hooyay waa dhali doontaa 9 maalmood baan ku soo fuulinayay marka bal inaad isku dhali karto isku day ka bacdi marka dhakhtarka uu ii sheegay in ilmahaygu uu xaaladiisu khatar ku jirto يعني رينا ديبو دالي بموجودي المهاجة بتبات سوساس لا لقيتون مركان وكلا قلتان. وضوقتي إن دكتور أحمد إيو فردوسة أي كسو وربين موضوعة ما أنتوا أفردنا قلينك هو يدا المها لو كل بدباديو تذكين أنت بدنا عفسي بدنا ما يكقبان رجع الدمر بيديها توم مرحلة دنا ومد أنت بدنا عفسي وجلسة hooyadiina khatar gelinaysa ilmihiina in lagu kala badbaadiyo loo baahan yahay baddoorka diinta islaamku ay macnihii wacyigelinta hawlahan oo kala marka ay dhacaan ay heerka ay gaarsiisay bal adna anooga tabax bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ilaahay baa mahad iskale subxaana watacaala runtii markii la eego ashyaada mucaasarka ama waxyaalahan hadda aan jirin ama aan badnayn mas'ala diiniya markii loo fiirinayo waa masaa'isha mucaasarka way aan jirin sida caadiga ahana hooyadu inay caadi u dhasho dhibaatooyin ay soo marto si guud oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala inay ay hooyadu in badan uurka xamliga ku soo dhibaatooto dhalmada ay ku soo ilaahay baa inoo tilmaamay subxaanahu wa ta'aala
waxyaalaha xataa ilaah subxana wa taala inoo tilmaama waxaa weeye hooyada markay dhalayso in ilaahay uu sahlayo uma sabiila yasarah ilaahay baa inay hooyadu si tartiiba u dhasho u sakhiray marka sida awlahii hooyadu waa inay caadi u dhasho oo ilaahay u fudaydiyo arrintan marka luqada carabiga markii laga sheekeynayo camaliya qaysariya la yidhaahdaa oo taariikh bay leedahay oo magaca la odhan jiray baa sida ninka ugu hor dhashay buu ahaa baa la yidhahdaa oo imbaratoriyiintii nidaamka ahaa hooyadii oo foolanaysaa dhimatay baa la yidhahdaa markaas ayaa la jeexay saasuu ku badbaaday oo markaasuu amiir imbaratorkii buu noqday baa la yidhahdaa waa taariikh macnaha saa darteed baa luqada carabiga la yidhahdaa qaysar camaliya qaysariya la yidhahdaa waa barnaamij ku yimaada daruuro ku yimaada shayga hadduu daruuro ku yimaadana dee diinteennu daruuradu qaacida jirta oo maaragtay runtii ay culimmadu ay mar walba dhahaan oo addaruuraatu tubiixu lmaxduuraat baa la yidhahdaa shayga daruuradii wuxuu banaynayaa waxa xaaraamta ah ayuu banaynayaa sidaa darteed baa qofku xataa hadduu maalan dee waxa baktigii oo kale iyo dee waa qur-aanka waad garanaysaan shayga hadduu bakti yahoon la gowricin qofku inuu cuno lama ogolo laakiin hadday daruura ku kalifto wuu cunayaa oo maaragtay nafta maqaasida ama waxaan diinteenna islaamku maqsadkeeduna waxa weeye shayga ugu muhiimsan 5 bay ku dhisan tahay 5 waxaa ka mid ah xifdu nafta bini aadamka in la badbaadiyo ayaa 5 ka mid ah marka haddii daruura keento sida doctorku inoo sheegayna dee ilaahayna waxaa lainoo sheegana in qof walba cid walba cilmigeeda fasalu ahla dhikri bal ahla dhikrigu cid walba waxay takhasuskeeda la weydiinaya ninka caafimaadka isaga looga dambay culimada cilmiga maaragtay sharciga in looga dambeeyo yani ninka maaragtay educationkiisa looga dambay yani cid walba takhasuskeeda in looga dambeeyo isaga la weydiiyo weeye maaha keliya in taasa hadday daruura keento doctorkuna uu caddeeyo nidaamkiina ay noqoto inay daruura tahay badbaadana ay u noqonayso hooyada iyo ilmaha ama midkood ay u noqonayso ama labadoodaba ay noqonayso sida doctor sheegay dee xaalaadka maalan dheertu inay kasoo ka marto oxygenku inuu ilmihii ka go'ay in ay cillado ay jiraan sababaysa in arrintaa hadday noqoto dee waa shay daruuro ah daruuradana waxa weeye diinteennu waa banaynaysaa in hooyadu ay ilmaheedii nafteeda badbaadiso talada doctorkana qaadato waa shay waajib ay noqonaysaa maxaa yeelay naf baa la badbaadinayaa naftaana cilmigeeda ciddii lahayd baa caddaynaysa in waxani uu yahay qalitaan marka sharciga islaamku marka wuxuu noqonayaa in aad raacdo ciddaa waxaan caddaysay ee cilmiga u leh hooyadu inay maqasho oo waxyaalahan innaga hadda foobiyada ahayn ka qabno maaragtay runtiina iska badan in aynan dhicin oo hooyadu ay arrintaa qaadato في نفس الوقت waxyaalaha iska jiro oo u baahan iyadana in dadka caafimaadkii ay cadeeyaan oo waxa jira dadku bulshadu waxyaalaha ay sheegaan waxa kamid ah ninka doctorka inuu rabo mararka qaar kood inuu caan noqdo in uu kiisaskiisu bataan oo yiraahdo intaas oo kiis buu qalitaan galay in mararka qaar kood dadku waxay oranayaan inuu lacag ku helo u qalaya mararka qaar kood hooyadii oo baahi meeshii on oolin ayaa imanaysa oranayaan marka waxyaalahaas oo dhan in wax cadeynayo oo maaragtay arinta inaynan jirin in doctorku markuu cadeeyo in hadalka la maqlo oo la qaato waa shay waajib oo sharci ah noqonaysa badbaadada hooyada iyo ilmuhuna in la badbaadiyo waa shay waajib oo sharci ah marka bulshada si guud ah waxaan leenahay barnaamijkaasi waajib sharci oo noqonaya sidoo ka dhawaajiyay Sheekh Jannadi inta badan dadku waxyaabaha ka aaminsan yihiin butubaaxi oo ah in qaliinada noocan la sameeyo dhakhaatiirtu inta badan ama dadka qaar kood warbixinaha ka qoraan baa jira oo oranaya dhakhtar hebel intaas oo qaliin buu sameeyo lagu abaal mariyay taas micnaheedu dadkii argagixisada ka qabaan in qaliinka lagu sameeyo waxay si horanaysaa ma keenaysaa in propagandaha noocaas oo kala ee bulshada loo marinayo hawada ay ka sii cabsi qabaan ayna aaminsan caqabadahaas ma la qabtaa fikirka doctor inta badan kolkol way dhacdaa taasina waxaan kaga jawaabanaa kow horta markii loo eego tusaalahan gabadh baa lagu yiri qalitaan baa tahay waxaa jira waxyaabo absolute maxay ahayd inay qalitaan mooyeen ayna wax kale ku dhali karin oo total dhali karin iyo waxyaalo waxaa jira maxay ahayd ay haysato tusaalahan
gabadhani 15% oo inay dhasho caadi u dhasho ayay haysataa laakiin 15% lafteedana dhibaata ka imaanaysa ama 10% bay haystaa ama 20% bay haystaa marka 80% gabadhii oo ay tahay in la qalo haddii ay dhahdo anu waa sii foolanahayaa oo ay kala badbaado waa qariska turnimo ee kama dhigno yacni totally inuu dhakhtarku khaldanaa kama dhigno taa kama dhigno kow dhibaatooyinka dhaca kolkol qaarkood aan lafteeda u dhacday in la dhaho kolkol qaarkood inaan dhahno gabadhani sida caadiga waa in la jeexo chance yar baad haysataa oo ah maxay ahaydey oo ay tahay inaad ku dhasho laakiin 80% qalitaan baa tahay marka waxa laga yaabaa in gabadha hadda way sugayaan marka ay saa ku dhasho marka ay gabadhii dadka kaleetan ama deriskeeda ha noqoto ama xaafadda ha noqoto ama bulshada ha noqoto ay ku dhadaan ba intii la yidhi waa qalitaan baa tahay yaan dhalay oo gabdho kaleeto marka iyadii intay dhahdo saas yeela oo sidoo kale intay yeelaan ay gabadhii ama umur raacdo ilmihii weydo ama xaalada adag oo caafimaad oo mustaqbalkeeda dhibaatooyin badan u keensanaya ay keento marka general sida guud gabadhu waxay xaq u leedahay kow inay diiday inay ogolaato xaq bay u leedahay haddii xitaa 100% ay dhali karin hadday diido iyada xaq u leh haddii ay ogolaatan iyada xaq u leh taasu dhakhtarku wuxuu soo dhigaa inta badan dhakhtarku kuma qasbi karo wuxuu soo dhigaa option buu soo dhigaa wuxuu dhahayaa intaasoo percent ba haysataa optionkaagu ama fursadaha haysatana waa noocaas marka adu kala dooro markuu dhakhtarku saa ku dhaho haddii ay dhahdo waan sii foolanaya oo saa ku dhasho kama dhigno dhakhtarku inuu maxay ama been sheegay ama uu waxaynay laakiin percentigaas ayaa jira marka ta kale aan rabay inaan ka dhawaajiyo waxa weeyaan dadkeenu inta badan xaalada emergency inta badan dhibaatada meesha koob ay ka soo bilaabto waxa weeyaan ANC gabadhu inay leedahay inay xanaanada marka hore ku sixirnayd gabdho tusaale ahaan waxaan hospitaalada inta badan ku aragnaa gabdho laba qalitaan leh ama qalitaan horeeto iyo dhibaatooyin horena soo maray hal qalitaan leh eegana ku dhiwan foolan walaal ma foolan kartid laba qalitaan baad leedahay ma foolan kartid sababtoo haddii aad foolaato waxa laga yaabaa makaankaagu 30% 20% wax ka badan ama tiro badan percent badan inuu qarxo marka taa daraadeed ayaan u diidanahay inaad foosho sii wado marka iyadii waxay dhahaysaa waan foolanayaa marka ama hal qalitaan bay leedahay markaasay dhahaysaa yacni waxa imaanaysaa qalitaan hore iyadoo lahayd oo eegana leh sabab lagu qali karo iyadoo leh haddii xitaa qalitaankan hore aan lahayn iyadoo qalitaan hore iyo sabab lagu qali karo eega isla wadata yaa laga yaabaa inay foolato marka chance yar 5% ama 5% chance aba laga yaabaa inay markaas kale haysato ama 10% 5% ba laga yaabaa inay ku dhasho gabadhii marka xaafadii dariska iyo sidoo kale iyo familigeed iyo dhahayaan maxay gabadhan way dhashay maxay ahaydey dhakhtarku wuxuu yiri qalitaan marka dhakhaatiirtu waxyaalo badan ba ku godan malihin total dhakhaatiirtu waa macsuumiin oo yani ma khaldami karaan malihin oo kolka qaarkood way dhacdaa dhakhtarka laftiisu inuu 50% chance yar 40% salaan 40% ama 40% gabadhu iyadoo haysata chance qalitaan oo 60% ama 70% oo dhali karto ay haysato yaa laga yaabaa dhakhtarka qaarkood inuu ku degdo way dhici kartaa bilahan baliya marka taasoo kaleeto waxaan leenahay dhakhaatiirta laftooda waxaan soo jeedinaa in ay hooyadu waxay xaq u leedahay information full in la siiyo sababta loo qalayo in loo sheego sidoo kaleeto waxyaabaha iman kara haddii maxay ahayd sidan sii ahaato haddii ay suurtagal tahayna in waqti la siiyo ay ku sii foolato intaasoo dhan marka la isku daro iyadoo xitaa loola dhaqmay CRC oo hooyada sharafteeda iyo qaabka loola hadlayo iyo inay xaq u leedahay hospitaalka iyo daraad in loo dhisay waxaasoo dhan iyadoo hooyada lagu waanayo maxay ahayday in time waqtina la siiyo xilliga appropriate ama saxda ana information loo sheego isla markaana haddii time la siin karana la siiyo wax kasto information oo ku xeeran iyadana si fiican hooyada loogu sheego kala badbaadin inay hooyada iyadoon dhibaatooyin badan tusaale ahaan waxa dhici kara dhibaatooyinku waxay noqon karaan dhibaato immediately oo markaaba dhacaya oo laga yaabo maalinta gudaheeda ama markaaba inay dhacaan iyo dhibaatooyin long term oo maxay ahayd 5 sano 10 sano intaasoo dhici kara oo hooyada iyo ilmahaba ah marka tusaale ahaan faa'iidada waxa kamid ah dhibaatooyinka laga hortagayo weeyaan faa'iidada waxa kamid ah hooyada in laga badbaadiyo isku furan in laga badbaadiyo maxay ahayd neerfiyaasheeda miskaha dhexmara inay dhibaatooyin badan galaan waliba sciatic nerve marar badan bay nagu dhacday in laga badbaadiyo dhibaatooyin ku dhacday in ay hooyada maxay ahayd ay u timaado dhaawac ama dhaawac ay heer ay gaadho inay maxay ahayd dhaawac halis ay gaadho way nagu dhacday marar badan way nagu dhacday intay hooyadu diido inaan anaguna aan u sabirno marka daraadda ay dhaawac hooyadii noqoto marka hooyadu dhibaatooyin immediately ah oo markaaba dhici kara iyo dhibaatooyin long term oo ama sanad ama 2 sano ama 5 sano ama 10 sano kadib dhici kara ayaa laga badbaadinaya